waxaan rabnaa halkaan ugu jawaabno mulxidiinta Soomaalida kamid ah Toyo Axmed Toyo jaaleel ku soo dhawaada YouTube-kayga Axmed Toyo maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa jaaleel wahabiye igaalisiiyay iyo danta iga leeyahay laakiin jaaleel inta barnaamijka ku soo waxa xusud mudan oo ay tahay inaan idin sheego waxaan leenahay YouTube kale oo ku qoran tahay Toyo Show kaas oo ay ku jiraan barnaamijyo fara badan oo magaranaysa aan aad uga hadalno si joogtaan barnaamijyo aan soo galino maalin la waliba Toyo Show way sida uu qoran yahay arkarayso hoosna magaranaysa link ayaan ku dhaafi doonaa si marka halkaan aad u timaadaan jaaleel waxaan rabaa marka inaan idin la wadaago jaaleel wahabiyada igaalisiiyay danta iga leeyahay horta marka ugu horeysaba inta aanan ku fogaanin wadaadka Mustafa Ali Caanood oo igaalisiinaya waxay aan idin dhageysiyo jaaleel waxaan rabnaa halkaan ugu jawaabno mulxidiinta Soomaalida kamid ah Toyo Axmed Toyo ilaa 6 nudqo ayaan kaga jawaabaynaa dhaalimkaas mulxid Toyo oo uu dacwada islaamka kula dagaalamayo iyo tawxiid oo maqlaysan jaaleel wadaadkaasi wahabiga ah ee igaalisiinaya waxa la Mustafa Ali Caanood waxa uu markaasi ku sugan yahay magaalada Muqdisho meel ku dhow oo la yiraahdo Ceelasha Biyaha masjid ayuu ku leeyahay dabaqeen ka leeyahay dabcan qofkii ugu horeeyay oo uu gaalaysiiyay oo diinta islaamka uu ka saaray aniga ma ahan magaranaysa dad fara badan buu magaranayay oo kaliya uu ka saaray oo culimada suufiyo fara badan oo caan oo la wada yaqaano maalin walba qof uu diinta ka saaray diinta wuxuu ka dhigay waxa isaga uu leeyahay ama meel dad inta soo kansa qofku doono ka baxlay qofka doono soo galay dabcan waa wahabi fikirkan wuxuu ka yimid Maxamed Abdi Wahab Atafiri gaalaysiiyay ayuu ka yimid marka iska caadi in lagu gaalaysiiyo laakiin waxaan isweydiinaynaa jaalayaal ujeedka ay leeyihiin marka aniga gaalaysiinay maxay tahay ujeedka ay leeyihiin taas baa isweydiin mudan oo ay tahay inaan ka jawaabo jaaleel xusud mudan aniga waayii dambe sida ogtiinba waxaan active ka ahaa oo aan maalinle joogto ah waliba oo maalinle aan barnaamij ugu leeyahay YouTube-kayga Toyo Show iyo Facebook-kayga Axmed Toyo iyo Facebook-ka barnaamijyo fara badan ku sii daaya baraha bulshada oo anigu shakhsiyan aan waliba soo fariisto oo qof darbiga gaashiisa ka hadlay toos oo soo fariisto waxa dadkan la qitaabtama u sharaxa waxa aan qabo waxa sheegayo markaas marka arintaas aad u dhibsadeen ka xumaadeen taas baana keentay in magaranaysa barnaamijyo iga sameeyaan oo igaalisiiyaan oo iska daba galaan magaranaysa laakiin iyagu igu dhunsan yihiin oo markii barnaamijyada ay soo jeedinayaan ujeedka ay leeyihiin waxay tahay in ay igaalisiiyaan oo aan baqdo oo joojiyo wixii magaranaysa laakiin waxaas karaar baan ka sii qaadaa dabcan dadkuna dabeecad bay leeyihiin dad waxa jira marka la ceebeeyo baqda dadna ama la eedeeyo ama magaranaysa wax uu lagu sheego gadaal u laabta dadna karaar bay ka qaadaan waxaan dadka karaar ka qaada magaranaysa marka arintan aad baan magaranaysa dareen uga qaaday waan sii wadi doonaa dabcan waxaan xusud mudan dad fara badan ay ugu soo biireen magaranaysa marka ay sheegeen yimaadeen wana maasiin waa soo dhaweynaa guud ahaan saaxiibada barnaamijyo tayalana waa soo bandhigi doonaa sida caadiga ay ugu taqaaneen waa sii wadi doonaa barnaamijka horta waxaan bilaabay maadaama aan soo galnay oo wax la igu haysta ay tahay wax tabintayda fiir anigu marka dadka qaar waxaan uga duwanahay wax markaan sheegayo ma dhunto oo darbiga gaashiisa kama jira ee sawir soo madaayay video markaan soo deynayo waa hadla gacmahan ka hadla dadkan hor fadhiya iminka hadda way daawanaysaa sida adoo ii daawanaya ayaa wax ku sheegayo waxaan ku sheegayo waxa dareemi kartaa waxa runka ah waxa beenka ah iyo waliba qalbi wanaagay aan kugu sheegayo fiir maadaama aan face ahaan aan ku hor fadhiyo صوت الصورة ومكرسة برنامج جاليال waxaan bilaabay November 2019 ayaa waxaan ku aansaday in si joogto ah aan barnaamij u soo tabiyo marka waxaan lahaa YouTube-ka Toyo Show oo aan muddo dheer sameeyay 2009 ka ahaa waayeel ah iyo YouTube-kan kale oo mar dambe aan sameeyay 2017 marka labada xabab waa lahaa makarasay Facebook-ga dad badan ku haysta dabcan xasuud barnaamijyada si dijital laakiin tayo badan ma lahayn laakiin barnaamijyada xoojiyimka oo ma garanaysaa aan focus saaray su'aalo laga yaabaa anoo subax shaqo tagay habeenkii inaan ka gaarsiiyo hal barnaamij tag inta sameeyo ku sii daayo ma garanaysaa marka xoogan soo saaray aad iyo aad waxaad moodaa yani dantii aan kala lahaa iyo ujeedkii aan kala lahaa inay rumoobeen dabcan ma garanaysaa illa xad in soo tagay sababtoo ah dadka inaad la qitaabtamo u sheego oo warkaygu gudba iyo ujeedkaygu ah ma garanaysaa ujeedkan waxa weey wax kala ma ahay markii aan arka fiiri ummadda Soomaalida ah dhan walba ka dhibaataysanta laakiin dhibaatada ugu weyn oo ugu daran waxa ay kaga timid kooxaha argagixisada ka horeysa
kooxaha argagixisada ay ugu isbaxaysteen dabadeedna dadka Soomaalida ay qarxi ku laayeen oo sooba kaliya qof ku dhimatay ikas control 300 ka badan ku dhimatay halkaas ama ka badan iyaguna ka sii badan magaranaysa oo Muqdisho kaliya tiranayna gobolada dalka oo magaranaysa koonfurta ama gobolada dhexe ama Puntland ama dadka la dhibaateeyay Soomaaliyeed meel walba joogan taa waxa weheliya dadka ay dhibaateynayaan bulshada inay carabeeyaan fiiriya annaga عرب ماهن وحنا دل صومالي أو مسلمة عربنا ومسلم سيدا قومية كان لمنا أو تركيا إيه كردية إيه هنود إيه وحاسان لمنا أنا وصوماليان عربنا وعرب ما الأسكان صقر ضد مسلمين وهو أي ولا ليس ومكرنا سا أنت سوي بدنا وحاسك بدافع العلماء لكن مركب أيوة أنا أركني وضن عربين مركب أي وضن أرجع جيرين فكرك وهابي المال باللغة بيرنا فكرك وهابي محكوم زي السنفيري وتكفيرين wuxuu arkaa ahlu sunna wal jamaa suufi qabuuri ku tilmaamo gaalaysiinaya shiici uu arkaa wuxuu ku tilmaama gaal inay yihiin fi qof walba ashhaadka qirahay waa islaam faraaka qaad qofka dafahmi waysa hada ma yahay daandaansi iyo rabsho iyo bari kula dabagalay anu marka dadka fahmaan ka bada taas waa aan inta u soo fariisto aan wahabiyada wax la fiiri wahabiyada marka aan tilmaamahay waxay iga tahay wadaniyad waxay iga tahay magaranaysaa diin iyo ilaahay inaan ugu dhawaado iyo rasuulkiisa iga tahay sababtoo fiiri dadku inta badan garashada iyo garaadka looma sinna iska garan kartaa fiiri waxaan loogu sinnay wax ay tahay qof baa qarax baa dhacaya qaraxu ka mataqaana ka taxsiina Facebook tag inta saadimata Allah naxariisto soo qoray annaguna qaraxi oon dhicin dadkii oon la qarxin oon la dhibaateen ayaa waxaan leenahay war dadka wax qarxinahayaahi shabaab okay shabaab waa ayo fakarka ay haystaan waa maxay وهابي يا الله يستا اعتزام الله يستا شيخ بشير سعد علي وجيس أمول شيبلي إثريس وهذا وهابي أتقانا لما صوف فرست علماء يقانا دون وحي أمسين محمد عبد الوهاب ابن تيمية فيري لا ما كان قرد رنادو أمول شيبلي بشير سعد وقد اعتزام هو جامعي رجع حمر جوجاهي هدي أي محمد عبد الوهاب شيخ وياه ابن تيمية شيخ وياه شعبنا وكان شيخ وياه هذا كان أقول فكرة الدينية قرمي لو صغري يهين تسكني وام حي وهابيدو دبعت بشوكها وام حي ويل إسقار حين حي فيه ويل بعد أنت بحر هوتيل جرا إسقار حين ده كاس بفير كاس ما أنا فيرس وأنا فيرس الفكر كان ماشي وقيم فيري أنا وحيابها أنت بدن أنت عبته وندك أو إفتيمي وحوي فكر كوهابي بعد كوه السعودي اللي كان صدق سنة واحد من الجوع نبكيسان لورق dhibaatadiisa aanu arag wiil yar oo lagu soo diray oo xiro in helaysa leeyahay meel inta dad baalan hal mar asiibahay baabiinaya aragtay fiid adiga hadda inta ruux dhalinyaro tahay karashii garaadka aad ka shaqaysiinin oo aayadaha quraanka ilaahay magaranaysa ay kugu la hadlay afala taqulun ma fakareenina aqal min hidin miya dad fakar ma hidin miya ilaahay kugu leh hadii aad maskaxdaada ka shaqaysiiso oo isweydiiso وهابيدو صو مصيبكم قبل شيء صومالي هاوي كوتا maxaa kula gudboon marka adig waxa kula gudboon inaad fahanto waxa kan waxyiin anigu marka sababahaas weey sababaha inta u soo fariisto aan bulshada ugu tilmaamo oo ilaado wahabiyad iska jira wahabiyad waa noocaad jiri ab iyo isir umalihin wahab anaga awooga abkoogis kii ka horeey islaami ahaayeen ahlu sunna wal jamaa ahaayeen suufi ahaayeen laakiin maalin gudeed hadii inta qof ku yimaado uu ku yiraahdo qabuuri caabudaan saasi ahaayeen oo dadkaadii isirkaadii abkaad inta lagu caay maalin gudaheed lagu bedelay oo wahabi laga dhigay in qarax iyo balaayo dhan asugtaa soo xadima sababtoo ah nidaamkaasi adaa ka wareegay adduunka kale kama jirto nimanka wahabiyada waxa loo diray caalamka kale oo dhan way ka soo waayeen xataa Suudaan taad arkaysid marka loo diray waraa la hada annaga waxaas qaadamayna fiiriya looma gamba karo laakiin Soomaalidu way iska sahlan tahay in la bedelo fiiri shay waxa ahayd 30 sano ka hor وهابي مجرى إمك أسا وهابي بالفرية وداد أو تقالنا هبل ووداد على هبل ووداد حقيقي الآن سيها ويدي شباب وحق رحنا يداعش يو وداد نيروبي جو معيدكم عليك رنا اعتصام يو حاسة ذاكيس ما هي أهم سين ما هي كل دوين إسبرب حقك مسكح على كشخ يصير روح للي راحتها هذا الدنيا الجوع فيني وهنا مسكح على كشخ يصير ما هنا ذكر دقيسته ومحاقر دان اسويدي كليه waxaa sameeysa hal daqiiqo oo kaliya maskaxdaada ku fakir tartiib istaag war maxaa qaldan
aniga kula hadlahay walaalka aan hay ninka kan Soomaaliga ah wax uu sheegay ma run baa masabeen kaliya wax isweydiisa wax aan ku sheegay ma run baa masabeen oo ah wahabiyadu inay dadka qarxiso dadka inay dhibaatayso fikirka bishaab iyo alqaacida iyo Taliban iyo ISIS iyo Boko Haram iyo wadaadada Nairobi joogo oo ihtisaam iyo wahabiyada ku midoobo hadda Soomaalida culimada isku sheega meelaha fadhiya waxay ku kala duwan yihiin isku wax ma aaminsaneen oo fiiri واحد مسكح هذا كروقات هذا إسكال جرات كهذا هذا إسكال عقلي هذا هذا إسكال جرش هذا وحول بذاله أنا أذالهم كلها كورن ما سايل دول استاج أيضا القرآن كوحي كهذا هيان نبضي ونهجي في نانتي في واحد هيسجرنا أو على ذي الصومالي هيسجرت أو يقعد وحصل أنا قاعدني شو هبي مركنات بركات كم يقولون ذلك ولا dhibaatada marka taaway ani sababaha aan marka wahabiyadu u tilmaamo oo shacbiga Soomaaliyeed ugu muujiyo waxa ay yihiin sida weeyaan barnaamijyadii aan magaraysa u soo fariistaa dacwo mar dhaleeno dad fara badan baa ku baraarugay dabcan adiga laftigaada imika ku baraarugaysaa su'aal kaliya ku weydiiyay waxaan ku weeray wahabiyadu waa maxay maxay kula duwan yihiin wax qarxinaya ka wadaadka oo taqaan meel jooga waxaas waa inaad daristaan waa inaad aqoonteeda leedahay haddii aad aqoonteeda lahayn waa inaad fahantaa waxa aad ugu xumaada marka arko mararka qaar ruux dhalinyaro ah oo aad dhalinyaro ah oo wax baran karay wax fahmi karay dareen samay karay oo waxaan ka hadlayna dareemi kara oo hadana madax laga qoflo xiran soo gurweyn oo qamada digta ku hay aqliga laga qaadiyo war gablame lii tadib socdo madaxaada ka shaqeysii oo waxa tiraahdo bulshada maxaa u dana bulshada way baabaad ani sababahaas way jaalay sabab soo fariistay barnaamijyadaas aan ku leeyahay YouTube oo ku iiwey barnaamijka laga hadla arrimaha siyaasadda ka hadla arrimaha bulshada waa ka hadla laakiin barnaamijka ugu weyn oo aan focus ka saaray ka weey oo dadka inta ugu badan ay ugu barteen oo ugu yaqaanaan waana sii wadi doonaa dabcan waa sii wadi doonaa marnaba ma joogso doono inta laga adkaanahay ku xaaragaysada waabiyada oo midka masaajidka gambanahay iyo ka dagaalamay labada waa tilmaamayna waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed oo tusayna haddaad ila garato barnaamijyada aan soo tabiyo aad ka hesho jaalle waxaan rajaynayaa inaad share garayso saaxiibadaada la wadaagto dhiirigelin ay soo darto dabcan برينين وحنا جهاد كجرو في سبيل الله bulshada tilmaamayo bulshada badbaadin hayo wax uu qabo soo sheegay afkaadan ku hadlahay hadaad hal kareeyay adigu ana afkaada ku hadlahay barnaamijyada dadka weyn ee lagta jaad marka YouTube kaaga daawanaysid YouTube kii Axmed Tooyo weeye waxaan kaloo leeyahay YouTube kale oo ku qoran tahay Tooyo Show hoos baan ku reebi doonaa jalayaal waxaan rajaynayaa halkaan inaad timaadaan barnaamij joogtaan kaas ku leeyahay halkaas ayaa wax ka soo tabiyaa waadna hadli doonaa inta aan noolahay waana u digi doonaa bulshada iyo dhalinta Soomaaliyeed jale Axmed Tooyo oo walaalkeen ah weeye waxaan idin leeyahay inta aan dib u kulmi doono YouTube-kayga Axmed Tooyo waxaan leeyahay sidaa inoo geliyo jale